على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan ku jirnay weli kitaabu nikaax fasalkii arkaanu nikaax uu kaga hadlayay. waxaan filayaa inaan joognay halka uu yidhi wannisaau calaa darbayni tayibaatin wa abkaar. soo saas mahay halkan mualifku raximah allahu tacaala wuxuu kaga hadlayaa wilaayada nooca maadaama nikaaxi ilaa biwaliyin mooyeen ma asaxaya la yidhi. wilaayadu laba nooc way u qaybsantaa. wilaayatu nikaax waxay u qaybsantaa laba qaybood. waxa la yidhaahdaa wilaayatu ijbaarin, laba maqla lagu yidhi. idinkii waxbaa idinkala haysta mikrofoonka. hadda ma la maqlaa marka korin adu yar qaado muu baahan yahay. laba qaybood, wilaayatu ijbaarin iyo waxaa la yidhahdaa wilaayatu ikhtiyaarin. wilaayatu ijbaarinta macnaheedu waxaa weeye awliyada qaarkood ninka weliga ah dumarka uu weliga u yahay qaarkood buu wuxuu xaq u leeyahay oo asaxaya iyagoon ogolaanin ama aan idan la weydiinin amaba aan la ogeysiinin. isagoon la waraysanin oon fasax laga dalbanin ciddii gabadha ahayd ee la meherinayey buu meherku asaxayaa. taa keliya ma ahane iyadoo diidan oo mayale buu asaxayaa. qaybna waa wilaayatu ikhtiyaarinoo ninka weli waa yahay taladase keligii kama go-do waa in lala ogaado oo gabadha khiyaarkeeda lama dhaafi karo. wannisaau haweenku calaa darbayni laba qaybood weeye, hayibaatin garoob iyo wa abkaaran, ama hayibaatin iyo wa abkaarin gabdho iyo garoob weeye. falbikru gabadha inanteen horay u soo guursan yajuusu lilabi waxaa u bannaan aabbaha iyo waljaddi awowga ijbaaruhaa inay ku qasbaan cala nikaaxi ay ku qasbaan. wahayibu gabadha islaamta gabadha garoobta ahna laa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa in la guuriyo ilaa bacda buluuqihaa markay qaan gaadha kadib maahane iyo wa idnihaa inay ogolaatoy shayadu caddaysato maahane. halkan mualifku raximah allahu tacaala wuxuu u qeybiyey haweenkii gabadh iyo garoob. haddaba gabadh maxay ku noqotaa maxayse garoob ku noqotaa waa masalo ay fuqahada muslimiinta iyo culimmadu xilligii hore iyo haddaba ay aada uga hadleen. asalku waxaa weeye markii ilaahay subxaana wa tacaala ay gabadha ilaahay u abuuro waxaa jira la yidhahdaa bikaara, kan soomaalidu ay tolmaha ay tiraahda ma aha. bikaaraduna waxaa gudaha ku jira weeye oo xiran. taas baa bikran loo yidhi oo bikaaradu waxaa xiran weeye. walidaalika waa ka yidhaahdaan fuqahadu dhiig kastoo la daadiyaay dandhow wuu u baahan yahay ilaa damal cadraa'i. gabadha bikradeeda dhiigga ka yimid markay jabto maahane oo si xalaala hadday ku jabto weeye ka iyagu waa dhiig la daadiyan oon dandhow lahayn, kaasaa jira. marka bikaaradu taasaa la yidhaahdaa. hayibana waxaa la yidhaahdaa asalku midda ay bikaaradeedii zuushay ee burburtay baa la yidhaahdaa. xaaladana culimmadu haddaba inay gabadh tahay iyo inay garoob tahay way isku raacsan yihiin. xaaladana way isku hayaan. gabadha bikaaradeedii hadday zuusho bisababi jimaacin hadday ku zuusho, nin ay galmi iyo xiriir gogoleed hadday ku zuusho, ama xalaal ha noqdo ama xaaraan ha noqdee xukumka sharciga hayiba wey. xukumka sharcigu mar hadday bikaaradeedii zuusho
oy xiriir gogoleediya galma ku zuusho gabadhaasi xukum sharci ahaan gabadh hayibaa wey ama sidaa ay u zuushay ha loo daayo ama dib ha loo soo amaamudoo loo talo loo diyaariyo ilaan bikhashaaulbikaara waxay yidhaahdaan xuubkani waa wax hadda ibiyan iyo caafimaad ahaan dib loo samayn karo oo la amaamudi karo wey ama dib gabadha bikaaradeedii ha loo soo celiyo ama yaan loo soo celinin marba hadday xiriir gogoleed iyo fal rageed xalaal iyo xaraam wuxuu noqdaba ay ku zuusho tayiba wey hadday bikaaradeedii jirto iyadana waxaa la yidhahdaa bikr baa la yidhahdaa haddii laakiin ay bikaaradii zuusho sabab aan intaa ahayn xukmu hayiba ma qaadanaysa mase qaadan maysa labadan kee la raacin masalada waa masale ay culimmadu isku hayaan oo maxaa ka mid a waxyaabaha ay ku zuuli karto waxay yidhahdaan xanuun xubinta taranka ku dhacay wuu jebin karaa gabadhoo xilligu intuu dheeraada weynaatana muddada badanee dhiiggu imanayo way jebin kartaa waxaa kaloo jebin karaa bootin ama dhacdin gabdhihii hadda banooni baa loo wada dirayo banooni iyo basketball ciyaara marka la yidhaahdo iyo la yidhaahdo jiim baa lasoo samaynoo jiim baa lagu ciyaari waxyaabahaasoo kale ama meel bay ka soo booday ama meel bay kor uga booday ama sibay u dhacday inay burburto way dhici kartaa waxaa kaloo dhici kara inay ku burburto waxa la yidhaahdo siigaysi ama istimnaha la yidhaahdo istimnuhuna waagi horena suwar buu lahaa iyo fuqahadu ka hadleen haddana suwar cusub buu leeyahay oo jira waana mas'alo laga yaabay masaa'ilka qaarkood oo la xiriira baabkaasna markii mujtamaca bii-adan aad joogto su-aal kugu timid inaad la yaabto madaxu ku xanuuna laga yaabaa laakiin meelo annagu aan ka nimid waxyaaba aan lala yaabinoo caadi nolosha ka mida baa iska jira fuqahadu waxay ka hadleen binasi kutubtooda oo uu leeyahay bikaaradeedu hadday ku zuusho biusbucin gacan la isticmaalay iyo far la isticmaalay oo laga yaabo iyada lafteedu inay isticmaashay hadday ku zuushay yidhaahdeen waxaa la mid ah waxyaabahan toyska la yidhaahdo haddii la isticmaalo toyska waa taqaanaan baan u malaynaya ilaan maanta suuqyadii intay fasaadeen oon riqaaba diin iyo sharci jirin baa xubintii tarankee rag iyo dumarkaba suuqa lagu iibinayaa wax sambalkeedii muuqaalkii leh waxaa laga yaaba ku qosliysaan waxay u qariibsanaa iyo soo maray su-aal noocaa ku saabsan bay ahayd inay diinta dembi tahay qofkii dembi ka weyn ka cararaya dumar iyo ragba inuu waxyaabaha isticmaalo ma dembi baa wayna soo martay mar iyo laba iyo saddexba calaa kulli xaal masalada hadda la isticmaalayaay xukum sharci ahaan ma cusbo oo haddii far la isticmaalay horey looga hadlay xukumkeeda iyo bikaarada ku zuushay maxay noqon in qori iyo geed iyo caag la isticmaalay ku zuushaayey waxba fartii kama duwana fuqahadeenu taa keliya ma aha waxyaaba idinku aad la yaabantihiin oo condoms la yidhaahdo bay 400 sano ka hor ka hadleen oo inta qayboode uu noqon karay ka hadleen maskax bislaatay bay ahaayeen markay condomka ka hadlayaan waxay yidhaahdaan haddii ninkii haweentii xiriir la sameeyo isagoo wax ku duubay ma zinaa maxad baa waajibi ma waajibaysa miyaa hadduu guursadoo saa yeela ixsaani ma noqon mise noqon mayso ma mahru nisfulmahrigii bay ahaan mise mahar kaamila ugu waajibi masaa'ilkaasay ka hadleen markaasay waxay yidhahdeen labaa loo qaybin fuqahada mutaakhiriinta shaaficiyadu haddii uu yahay waxa lagu duubay wax khafiifa oo dareenku ka soo gudbayo iyo wax adag oon dareen ka soo gudbayna hadduu yahay bay ka hadleen hadda condomiska markaad akhrido diraasaadka laga sameeyey waa urintii maradii oo qaar khafiif iyo qaar adag intiin wey wax kale maaha tiin baa caag laga dhigay qaabaa farsamada la yar hormariyey qaarna khafiif laga dhigay qaarna la adkeey waa isla maradii ay ka hadlayeen oo haddana si kale loo horumariyey weyna nolosha marka waxyaabahan fuqahadeenu hore bay u taabteenoo waaqic bisil iyo maskax bisil oo maxaa dhici kara sawirata bay lahaan jireen raxmatullaahi calayhim marka waxay ka hadleen gacan la isticmaalay ay ka hadleen qaarkood waxay ka hadleen qori iyo geed haddii la isticmaalo haddii hadda caag la sameeyo soo iyagii un maaha wax kale maaha soo maaha qaarkood waxaan xasuustaa waxay ka hadleen
haddii caaji la isticmaalo. Lafmaroodiga waxay dhaheen haddii intii waxaan xaganaynin laga dhiga la isticmaalo diintu maxay ka qabtaa? waa xilli dhowr boqoloo 500 600 sano laga joogo. idina waxaad moodaysaan masaa'ilkan fiqiga hadduuba waxaan soo baxo wadaad cusub oo hadda oo daraso oo raadiya maba u baahna. ninkii faahfaahin baabka aad u badan rabaay risaaladan dictorade al-ittisaalu al-jinsi bilwasaa'il at-tibbiyati al-hadiitha kitaabka la yiraahdo ha akhriyo waa kitaab ilaa 150 beeja waxyaabahaas ka hadla iyo ahkaamta sharciga waxay ka qabtay culimada hore waxay ka yiraahdeen marka haday bikaaradu ku zuushabootin ama xanuun ama ay ku zuusho gacan la isticmaalay masalada waa masala la isku hayo qolana ay leeyihiin bikradii xukmu bikri bay qaadan sababtoo ah gabadha thayibada waxay kaga duwan tahay waa qof rag soo guursanaysa horeyna rag u soo tijaabisay tani waxa ma soo arag bay yiraahdeen xukmu bikri bay qaadanaysaa qolana waxay yiraahdeen waxay ku kala duwan yihiin wujuudul bikarati وزوالها بيكون كلا دوين كمان بكرة ويبابعضيه حكم الطيبة دي خلى الراعي هل كان ويمرنكم ماشى وكتاغيه على كل حال مدى اعتراضه بكو الله يسكوها ايو هوانكو وقبر يا قرب قبله ولا قورين كراه إياذا وأن إذن لويدين ويصفي عنتهي إن إذن لويديو نبي بركو عليه الصلاة والسلام والبكر تستأمر ويري gabadha bikrada waa lala tashaday maxaa kala quman baliirada markaas ay rasuulka ilaahayo gabadha inantii aan hore guur u soo marin hadii waligeey ninkaaba ku guuriyaa yiraahdo way xishooro ha afkama soo marin kartee kaas xiri idnuha sukuutuha aamuskaasi waa ogolaansho sababtoo hadaynan rabin mar rabay dhihi lahayd laakiin waan rabaaday ka xishootay إذن كان لو يدير النبي هل إذن ويديه ويري وجوبا معها استحبابا وي وحاول دليل الله الرموت وكله الريفي وحاول دليل مركة كوبات قصة زواج النبي عليه السلام بعائشة نبي عائشة مركو قوسة دي الاحتير باهد والاحتير محل لغا ويدين الاحتير بعد تلا لويديه أبو بكر نتلا ما ويدينين عفق المسلمين دون أساس وهان جري يحلق النبي حتى صلى الله عليه وآله وسلم نكاحاسي يظن إذن لو يدين وأصحي والنبي وعائشة كبوسدي يظن ديدن ومر مالهنا نكاح وأصحي وإجبار كمربه أبيهي أولا والله حكم إجبار كوكوقص بكراوية مهرك intaasi ظاهر نص bay leedahay fuqaada shaafiiciyaduna halkaas ay ku ekeysteen laakiin naska daahirka ee asixitaanka sheegay qaybtiisii dambe bay fuqahadeenu ka tageen ay haboonayd inta hore say u qaateen inta dambana inay u raaciyaan waxa ka sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam min xadiid ibn Abbaas radiyallahu anhu wa ardaahuma wuxuu nabiga gabar baa u timid bikra oo hore u guursanin waxayna tiri rasuulka ilaahayow aabbahay wuu i guuriyey nin buuna igu meheriyey aniga oon rabin oo diidan nabigu calaih khiyaar baa leedahay fakhayarahaa rasuulullahi sal l slam adaa khiyaar le buuhi ama daa ama fasaq haddaba nikaaxu hadduusan asixin sida tagaroobku uu nabigu dhihi lahaa waxba kama jiro adaa khiyaar le buuhi maxay khiyaar u leedahay inay dayso oy sidaa u daysa aabbaheed u meheriyey iyo inay fasaqato labadaba khiyaar bay u leedahay maxaa la fasaqi hadduusan asixin markii horta halkaan nikaaxu inuu asaxay baa ka muuqata gabadhii waxay tidhi aabbahay wuxuu ku teliye waan iska yeeli laakiin waxaan rabay inay ogaadaan in aabbayaashu keligood aanay iska tashan karin intan fuqahada haddaba fakhayarahaa fuqahada shaaficiyadu bay ka tageen waa sixidii hore ay ku gaabsadeen fakhayarahaa waxay daliil u tahay gabadha iyadoo diidan la meheriyo meherku waa sixi laakiin inay caddayn qorto oy markhaati u yeesho nikaaxa inay ka baxday oo aynan ku jirin oo iyada aynan diyaar u ahayn baa nikaaxii ku burayaayoo ku fasaqmaysaa intaa dambey shaaficiyadu ka tageen inta horena naska way qaateen amaa garoobtu iyadoon eray cad laga haynin
layskama meherin karo haddii la meheriyana ma asaxo waxba kama jiro meher baatila wey nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa waxaa u timid gabar la dhihi jiray saxaabiyad khansaa bintu judaamin alansaariya waxay tihi rasuulka ilaahayow anigu garoob baan ahay aabbahayna aniga oon rabin buu nin igu meheriyey faradda nikaaxaha wuxuu yidhi waxba kama jiro guurkaas waxba kama jiro waayo wuxuu xadiid kalena ku yidhi gabadha garoobta ah athayibu axaqu binafsihaa min waliyiha haweenta garoobtii weliga go-aanka kama dambaystaa iyadaa kale oo waxaynan rabin kuma qasbi karo iyadu ninkii kufay keensatana looma diidi karo ninayna iyadu rabinna wuxuu dooni ha noqdee qasab looguma guurin karo sababtoo ragna way taqaanaa horeyna way u soo aragtay haddana way kala garan walidaalika ninkii yaqaana ama baabulqadaa iyo xaaladaha qoysaska iyo wax badan galay qofka markaa is soo hor istaagtaan isu timaadaan inay gabar tahay inay garoob tahay in badan su-aal uma baahnid su-aal uma baahna walidaalika qaadi shureyx waa kii saddex haweene horaan idinku sheegay ee la keenay ibnulqayimna uu ku soo guurinaya turuqulxukmiyati fi siyaasati sharciya qaraa-inta markuu ka hadlaya qaraa-in iyo astaamo in lagu xukumo saddex haweenkeed markay dhaqaaqeen wuxuu yidhi niman yaho saddexdii baan idiin sheegay haweenkaa mid uur bay lahayd midna inan bay ahaydaan horey u guursanin midna garoob guurdoonay ahayd waxaa la yidhi maxaad ku garatay wuxuu yidhi garoobka guurdoonka ah isha iga dusisay buui tan gabadhaana korba way fiirin weydo way foorartay buui midda kalena yaan lagu arkin bay lahaydoo maraday caloosha kor oga yar haysay buui sidii baa laga daba tegey sidii bay noqdeen qaadi shureyxuu sheegay marka qaraa-in iyo astaan baa jirto say gabari u xishooto islaan garoobihii ogama gabato waxay rabta iyo waxayna rabin waayo waxay ku socotana way taqaan waxa ka iman karana way taqaanoo horey waxaan usoo aragtay marka ceel nin galaa laga waraystaaye iyadaa wax laga weydiin saa darteed looma gacan dhaafi karo gabadhan laakiin yartiihii maanay araguur wax ka horeeyana ma garanayso saa darteed baa talada inta badan oo duq iyo weligeeduun gacanta isaga hayaayoo ha la weydiiyo laakiin awood badan aynan lahayn waayo waxaan maba oga iyadu intaa kadib wuxuu yidhi faslun fasalkana laba arrimood buu ku saabsan yahay arrinta koowaadii haweenka aadan guursan karine almuxaramaatu min annisaa'i la yidhaahdo qaybta labaadna waxa la yidhahdaa muhbitaatu alkhiyaari waxa khiyaarka qofku uu leeyahay ee rag iyo dumarba guurkii meherku dhacay haddii ay waxyaabahaas ay yimaadaan uu ka noqon karo xaqna u leeyahay nikaax inuu fasaqdo taasina waa qaybta dambe ee fasalka waalmuxaramaatu kuwa abidka xaaraamta ah binafsi naska qur-aanka 14 14 wey way ka badan yihiin 14 laakiin inta qur-aanku sheegay 14 dumar ah weligaa intaad ifka ku nooshahay guur iyo xiriir guur idinma dhex mari karo waa taxriim muabad ah 7 binasabi qaraabtinimiya dhalashay kaaga xaaraanti noqdeen wahuna 7 alummu hooyada weeye wain calad korba ha aado ayeeye kor ha noqoto hadday rabtee waa usuushii adiga ku dhashay ee dumarka ahayd sina uma guursan kartid talabaad walbintu gabaraad dhashay iyo waxay sii dhaleen weeye ama adaa dhalay ama ilmahaagiibaa sii dhalay ama ilmahoodiibaa sii dhalay wain safalad haba hoosayso meel hoose haba tagte ta saddexaadii walukhtu walaal weeye ama walaal aabbiyo hooye ha noqoto ama aabbo keliya ha noqoto ama hooyo keliya ha noqotee walaashaana ma guursan kartid waalkhaalatu habaryartaa wey waalcammatu eeddadaa wey wa bintu lakhi walaalkaa gabadhuu dhalay eed adeerka u ahayd wey wa bintu lukhti walaashaa gabaray dhashayoo adabti u tahay wey 7daas qaraabtinimiya dhalasho nasab sababteed bay xaaraam kaaga noqdeen midnana ma guursan kartid midnana damac guur kaama geli karo intabana qur-aankaa lagu sheegayoo ilaahay baa suuratu nisaa ku sheegay xurimat calaykum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey
ummahaatukum hooyooyinkii wa akhawaatukum walaalihi wa banaatukum gabdhaha dhasheen wa akhawaatukum gabdhaha walaalihiina wa cammaatukum eedooyinkiin wa khaalaatukum habaryarihiin wa banaatu lakhi kuwaad adeerku ahaydeen wa banaatu اlkhti iyo kuwaad abti u ahaydeen aayaddaasaa lagu soo ururiyey almuxaramaatu biاnasabi wahnaani labana biradaaci nuugmay hadday ku xaaraanti noqdaan hadday hooyadii ku dhashay qof aan ahayn ku nuujiso hooye ah 5 jeerna ay ku nuujiso adiga oo aan 2 sano ka weynayn ama 2 sano aan gaarin aan dhaho maa duuna alxawlayni adoon 2 jir kuu dhammaystirmin hadday 5 jeer ku nuujiso haweenaan hooyada ahayn booskii hooyadaabay kuu geli alummu almurdicatu hooyada ku nuujisay ee nuugmada hooyada kuugu noqoteen ku dhalin iyadana xaaraan bay kaa noqotaa walukhtu walaasha oo min aradaaci nuugmada walaal kuugu ahana waxay kuu tahay iyadana maxram ma guursan kartid wa ummahaatukum allaatii ardacnakum hooyooyinkii idin nuujiyey wa akhawaatukum min alradaacati iyo walaalihiinood naaska wada nuugteen carruurtii ay dhashay ama ha kaa horeeyaan ama ha kaa dambeeyaan ama ha kula ekaadaane gabdhaha ahaayee hooyada caanaheeda nuugay iyagana walaalaha weeyo xaraan bay kaa yihiin intaa qur-aankaa sheegay in kalena waa jirtaa oon qur-aanku sheegin oon dib ka sheegi doono wa 4 bilmusaaharati xididnimada bay ku xaaraan noqdaan reer aad xidideen xidid guurna idin dhex marayna 4 baa xaaraan kaa noqota 1 ummu zawjati xaaskaaga hooyadeed haddaa xataa ay kaa dhimato ama aad kala tagtaan waa siday hooye kugu noqotay wey warabiibatu gabadha xaaskaagu ay dhashay ee nin kale u dhashay idaa dakhala bilummi hooyada haddii u galmoodo oo reeraysto wa zawjatu labi aabbaha haweenta uu qabo wa zawjatu libni wiilkaagu iyo ilmahaagu haweenta uu qabo kuwaana weligaaba ifka intaad ku nooshahay isma agmari kartaan walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf ilaadan tafaasiirta saxiixa waxaa ka mida bimacnaa walaa in laga dhigo ilaa maa qad salaf walaa maa qad salaf wixii horee tagay xataa ma sii qabi kartaan ay daahirka aayaddu noqoto marka aabbiyowgin haweenkay qabeen islaan aabbahaa guursaday oo reer u noqotay gadaashii ma guursan kartid ninkii nabiga xilligiisa calaih salaam sameeyey ee aroosay islaan aabbihii ka dhintayna waa kii ragga u diray ee uu yidhi ninkaa madaxa ka gooya xoolihiisana khaniimo ka dhigoo qaybiya ninkaa gaalnimu caddayste ayaa wixii xaraamtaee naska ahaa buu sidii wax mubaaxoo sharciga ka dhigay oo xafladiiyo aroos iyo u sameeyey iyo weliimo ninkaasi waa hala dilaa la soo nabig ala xilligiisii waxaa kaloo la ilahi subxana wa tacaala yidhi wa ummahaatu nisaa'ikum xaasaskiina hooyooyinkood waa idinka xaaraam bimujarad caqdi uu dhacay iyo meher dhacay gabadhaad mehersatay hooyadeed markaa meherku dhacayba way xaaraan noqon laakiin wa rabaa'ibukum kuwaad idinku soo barbaariseen allaatii fii dakhaltum wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum idinku aada barbaariseen min nisaa'ikum ay dhaleen allaaimia warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna haweenta aada adigu reeraysatay eed gogol iyo guri wada gasheen gabadhii ay dhashayna waa kaa xaaraan haweenta aada guursatay haddaba 2 qof baa ku xeeran gabadhii iyadu ay dhashay inaad hooyada reeraysatay kaaga xaaraantinimo noqon laakiin meherkii markuu dhacay haddii wixii kula yar qumanaan waayo oo dib uga kala firayso gabadha waad guursan kartaa laakiin markaad iyada meheriso hooyadeed meherkaasay ku xaaraan noqotay
amaa waxalaa'ilu abnaa'ikum xaasaska wiilashiinu ay qabaanna iyadana idinka xaaraam wey weligood intaa waa inta abadan inaad guursato xaaraamta ka ah ee qur-aanku sheegay intaan qaybta kafray tobnaad la gaarin qaybo kaloo waxaa jira iyaguna abadan xaaraamka ah qaybi ridaaca iyo nugmada ay ku timaadaayo hadalkiisa dambaan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala qaybana asbaab kale ay ku yimaadaan waxaa kaloo wax ka mid a waxyaabaha licaanka markuu ninkiiyo naagta dhex maro ee haweentiisii uu yidhaahda way gogol dhaaftay ama ilmahanay iyadu caloosha ku wadaa anigu ma dhalin ee la ysku qabsado hadday iyadii qiran weydoy inkirto baabulicaan baa furan suuratu nuur lagu sheegay waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim 4 shahaadaati billaahi 4 jeer buu ilaahay ku dhaaran inahu la min asaadiqiin inay runtii tahay waana baabulicaan baab inoo iman doona wey markii labada mid walba 5 jeer dhaarto midna xad laguma laha ilmihii hooyadii baa loogu abtirin labadan qof ee licaanku dhex marayna ifka hadday labadooda ka soo haraan meher isuma qabto isuma guursan karaan maxram isuma aha sida dadkii kale hadda la soo sheegay laakiin taxriimka mu'abadkeen weligii la isguursan karin bay ka mid tahay wa waaxidatun midna oo qur-aanku sheegay min jihati اljamci in la jamciyo la mideeyo oo la isu geeyo la wada guursado baa la xaaraantinimeeyey wahiya ukhtu zawjati xaaskaaga walaasheed wey lakiin xaaska hadday kaa dhimato amaad kala tagtaan waad guursan kartaa walaasheed laakiin inta iyada aada qabto ilaahay baa wuxuu ihi waan tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf waxaa laidinka xaaraantinimeeyey laba walaala ah inaad kulmisaan ood reer ka wada dhigataan halkaa waxay culimmadu yidhaahdeen aayaddu hadday tiri laba walaalo ah xaasiya reernimo laguma kulmin karo laba suuro oo kaleeto baa iyagana soo gelaya inaad laba gabdhoodoo addoommo aho walaalo ah wada yeelato labadabana wada reeraysata lama ogola in gabadh xorahood qabto walaasheedna addoon reer kuwa ay noqotona lama ogola laba walaalo ah lama kulmin karo fii xilli listimtaaci kuma kulmaan sidaas way aayadda sida tafsiirka culimo badanna ay qabaan madhabkuna masaa'ilka uu ka qabo laakiin ka waran awliyada iyaga ma loo ogol yahay laba walaalaha inay wada guursadaan shareecada wax ka baawar weyn oo qur-aanka ka awood badan oo laba walaalo ah meherkooda wada banayn kara in la wada guursada weligiin ma maqasheen anigu waxaa arkay oon aqaanaa nin soomaalidu weli ay u taqaano oo qabrigiisa meelo badan looga soo siyaarto oo loo soo safro oo laba walaalo ah wada qabi jiray waxaa la yidhahdaa soomaalidu ninkaa 3 jeer buu dhashay bay yidhahdaan magacaabi maaye ninkii qisada yaqaanaa fahmiye 3da qabiil ee soomaaliya iyagu u haysta haddaynay u waawen yihiin buu marna kan u dhashay wuu dhintay kan kalu u dhashay wuu dhintay kan kalu u dhashay wuu dhintay bay yidhahdeen halkaa waxaa looga jeedaa fadligiisa bay qolo walba rabtaa inuu u nasab sheegto ay ku gaadhaan sidaas waxay sidaas tahay gabar buu qabay way umushay tii ka yarayd baa loo soo diray jiiraani baa ii meheriyey buu yidhi iyadana wuu ureeyey wiilkay ku curtay dhashay baan Mombaaso wada deganaan jiray oon aqaanaa wiilkii ay gabadhii warwaa sidee markii la yidhina jiiraani baa ii meheriyey jiiraani soo ka dhintay maaha laakiin waxay isweydiin le horta gabadhan reerood jiiraani walaayadeeda yaa siiyey horta isaga weli uga dhigay sheekadu sheeko beena weeye jiiraanina muuna arag jiiraanina xukam yaqaani jiiraan xukum meerinini waa ninun fastakhafa qowmahu fa ataacuuhu tasaasay dadku ahaayeen dadkaa la maskaxaday caqligoodaa la maskax fudaydsaday iyaguna wixii bay aqbaleen fastakhafa qowmahu waa yahay baa laleeyahay waan tajmacuu bayna alkhtayn qur-aanka yidhi warkaa wadaadku yidhi jiiraani baa ii meeriyey baa ka awood badan haddana ninkaa mujrimka ah baa weli la siilaya
laba walaala wada qaba ee ilmaha ka wada dhalaya ba haddana weli laleeyahay Soomaalidu qabiil walba barakaysto isku tirtiruu rabaa marka quraanka iyo sharciga wax ka weyni ma jireen waxa yaan madaxa iyo aqliga la idin kaga xadin waxa uu hada sheekada araya leedii sheegid wala yujma'u laysu mageeya guur bayna almar'ati haween iyo ammatiha eedadid waayanta isku masayraan bay raximka iyo xididtinimadoodii gu iyo qaraabtinimadoodii wala bayna almar'ati haween iyo wakhalatiha hawaryarteedna tani waa nas xadiis oo Bukhari iyo Muslim ah ee ayad Quraan ma aha nabiga laakiin alayhi salaam wuxuu rabay la yajma'u bayna almar'ati wa ammatiha wala bayna almar'ati wa khalatiha labada midna la isku madaro Bukhari iyo Muslim baa nabiga ka wariyay sallallahu alayhi wa sallam wa yahrumu harama min ar-radaa'i nugmadana ma yahrumu wixii haramaha min an-nasabi dalashada todobadii dhalashada xaraamta ka ahayd ereygani waa nasu xadiisi weeye jumladani oo nabigu yahrumu min ar-ridaa'i ma yahrumu min an-nasabi wa xadiis saxiix oo Bukhari iyo Muslim iyo غيرkoodba ay wariyeen ay ku dhashay intii iyada dhalintay ku dhashay darteed xaraan kaaga noqon lahayd ba hooyo kale haday ku nuujisana intii iyadoo ku dhashay ka xaraan noqon lahayd ba ka xaraan noqon iyadoo waa ka xaraan wixii ay dhashay waa ka xaraan walaasheed waa ka xaraan hooyadeed waa ka xaraan waxa ka xaraan waxay habaryarta u ahayd ila aakhirih kuwa habaryarta mahabreed baatiin Soomaa kuwa xaraan kama marka nasabka todobadii usuusheedana waa ka xaraan furuucdeedoo dhanna waa ka xaraan furuucda labadeeda aabba ay dhaleen aabaheed iyo hooyadeed ay dhaleen waa ka xaraan waayo iyada aabaheed gabadha uu dhalay habaryarta bay noqon tay hooyadeed dhashayna habaryarta bay noqon intaba hadaba ninkiina waa sidoo kale haweentaas ku nuujisay xilligay ku nuujinaysay ninkii qabayna aabbu ku noqon oo abuuka min ar-radaa'ati buu noqon waana tay fuqahadu u yaqaanaan labanu dhi'ri waxaa la yidhaahdaa hooyada caanaheeda nuugtay ninkii qabayaan aabbaha ahayn baa la yidhaahdaa oo iska adeerka ah isagana waa aabbaha booskiisuu tegey walidaalika Caaisha radiyallahu anha haween baa nuujisay ninkii haweentaa qabay walaalkii baa guriga ku soo garaacay markaasay diiday inay ka furto ilaa nabigu yimaado nabigay tiri ninkii hooyadii nuujisay ninkii qabay walaalkii baa ii soo garaacay miyaan ka furi karaa markaasuu yidhi haa waa cammuka min ar-radaa'ati adeerkaa wey sidii adeerkaa aabbaha la dhashay buu adeerkaa u yahay aabbahaagay kale caanaha la dhashay saas darteed kii gabadhii la dhalatay aabbaha caanaha ku nuujiyey hooyadii xaaskiisu ku nuujisayna waa eedadaana ma guursan kartid yaxrumu min ar-ridaa'i maa yaxrumu min an-nasabi masala aan ku soo khatima masaa'ilkaas dadkii hadday u qaybsameen haweenkii labo intaa la sheegay iyo inta kaloo ku xalaalaha wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum an tabtaguu biamwaalikum la yidhi hadday isku qasmaan maxaa la samayn masale fuqahada ay ka hadlaan ida اkhtalata الnisaau suwarka ay ka hadli jireen fuqahadeenna waxaa ka mid a haddii magaaladu dad maxsuur oo kooban joogaan lana hubo qof maxaarimtaadii ah ku jirta laakiin lagama yaqaan inagoo da suwarkaas say ku dhacaan waxaan ku fahmi karnaa oo kaleeto aabbahaabaa askari ahaa marba meel baa loo bedeli jiray isna waa guur badnaa meelahan gabadhu dhalay inay joogtaad ogtihiin laakiin tay ahayd ma garanaysaan ama dhinaca annaga nagu soo leexi wadaadado wadaad ziyaaradiisa urursaduu ahaa reerkuu tagabana gabadh baa lagu dari jiray ilmuhu meesha ku dhalayo wuu iska tegay xogtana wuu ka dardaarmay reerkaasi iyo tuuladaa gabadhaan dhalay baa joogtu yidhi adugu gabadh ma ka guursan kartaa maya ilaa aad hubsato sababto taad guursan dhahdaba iyadii bay noqon kartaa soomaaliduna qisooyin iyo sheekooyin laba walaaloo ishukaansaday iyo oon isgaranaynin iyo sheekooyin bay sheegaan
calaa kulli xaal hadday xaalaal iyo xaaraam isku qasmaan asalkiibaa mas'alada loo noqdaa asalka waxani ma xaraam buu ahaa mise ma ahayn xiriirka gogoleed waxaa la yidhahdaa alaslu fi labdaaci alxurma waxaan sharcigu banaynin oo dhan xaaraan wey haddii qoladii abshir bacad la sheegaya adigu aada noqoni baab kala wey qolada waa taqaana sooma cidi kama boobino way banaan tahay markuu leehay hadday baabkaa kula gasho waa ibaaxiyiinta iyo baabkaa kala wey laakiin asalku gabadhaan si sax a loo ogeyn inaad guursan karto ma guursan kartid intaa kadib wuxuu u soo gudbay muhbitaat lkhiyaari waxyaabaha khiyaarka suga qofka labadii qof ay isguursaday baa midkood ceebi ku soo baxday wa turaddu lmar'atu haweentii waa la soo celiyaa bikhamsati cuyuubin 5 ceebood haddii laga helo ninkana 5 baa lagu soo celiyaa biljunuuni gabadhii lagu siiyey laguu meheriyey markii caawa guriga laguu keenay waaba waalan tahay big weeyaba wareedhan ruuxa waalan hadii keenteen muxuu yahay waljudaami xanuunkan judaamka la yidhaahdo ee jirka intuu bedela googooya baa ku dhacay ee dadka la karantiiro walbarasi jir cadaad baa ku dhacay baraska xanuunka la yidhaahdo saddexdaa saan arki doona rag iyo dumar midkii laga helaba ka noqo guurkii waa asaxaysaa gabadhiina ninkii haddii loo keeno saa nin waalan baa ridda looga soo geliyey ama baras qaba ama cudur judaana qaba waxay dhahdeen waxaa looga qiyaasanayaa amraad iyo cudurrada xunxun ee nufuustu aynan aqbali karin oo dhan qofkii qaba qofba qofka kale waa dhihi karaa bas halkaa inoogu joojiyo sheekada inoogu xir kadibna fasaq buu aadi karaa 2 ceebood oo rag iyo dumarba galana waa guurku hadaf buu leeyahay guurka sidiisaba nabigu markuu lahaa man istaaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj uu cileeyey sababta loo guursanaya maxay tahay fainahu agadu lilbasari wa axsanu lilfarji faraji ma aha agadu lilbasari isagaa indhahaaga inay laabtood ururiso oodan gabadhii meel martaba isha la raacin guurkaa laga hela oo marka aada guursato wax ku waalayood meelaha la fiirfiirisa ma jiro waaxsanu lilfarji farjigii iyo shahwadiina waxaa tii xaaraan tahayd kaa deeqa mid xalaala inaad hesho haddii labadii midkood ku dhacda xanuun ama cudur laga helo aan waxbaba suuragal ahayn aan waxba la kelinayn meeshiiba jugjug meeshaada joog hadday noqoto dumarkana labaa ku dhacda raggana labaa ku dhacda dumarkii waxaa ku dhacda waradqi meeshii xubintii tarankaba inuu hilib ka soo baxay oo xihan tahay hilib baaba xirayo meel wax laga doonto male ama walqarni laf xubinkii tarankoo xihan oo ama lafi xirtay ama hilib xiray maqsuudkii hadafkii guurka asaaska ahaa ee icfaafu nafsi iyo shahwadii gudashadeeda si xalaal ahayd suuragal maaha marka meesha dee waxa laga joogo iyo hadafkii oon la xaqiijinaynin wax macnaa male waxaa lamida wayuradu rajulu ninkana waa la celiyay bikhamsati cuyuubi biljunuuni waljudaami walbarasi iyo 2 kale oo xibinka taranka la xiriira waljabbi inuu go-an yahayba waagii hore dagaalada soomaalida dad la dagaalamaan waa la isgoyn jiray ninkii caawa gabadhii markii loo keenay waxba kuma yaallaba isagoo ku yaalla oon tabar lahayn baaba nabiga looga dacwoon jiray sal sl slam nabiga gabar baa u timid kan dambayse u dhowday aan dibdhigo waljabbi ninkii waa go-an yahay de gabadhii cifatu nafsi iyo xaajada shahwadeedii inay gudatay u baahnayd waxbaba meesha ma yaallee faaqidu shay laa yucطihi sooma ninkaasoo kale gabadhu inay alaabteeda qaadato xaq bay u leedahay reerkoodii iska aado oy tirahdeen ninka warqadayda ha layga keeno waxba meesha kuma haya 2 walcunnati inuu ninkii cini noqdo jabbiguna waaba go-an yahay xubinkii taranka ama qayb baa go-an oo waxa soo haray wax qabanayo hawl iyo baahi dabooli kara ma aha cunnaduna xubinkii taranka waa ku yaallaa
laakiin calal maraa kama duwana waa dhaqaaq bay iskuma hayo dhaqaaqa ha malaha nabi calaih salaam waa kay u timid gabari rifaacat alquradi baa qabi jiray way kala tageen saddexdii dalqadood baa u kala dhammaatay nin bay guursatay cabdiraxmaan ibni zabiir la yihahda zubayr ma aha ninkiibay de waxay aragtay de waxaa meesha waxa la taaban karaba olin nabigoo sax cumar iyo abubakar iyo la fadhiya sal slam bay u timi rasuulka ilaahi dhegaysay tiri ninkaasaan wada joogi jirayoo way noo kala dhammaatay kadib ninkaasaan guursaday ninkiina meesha waxba kuma haya bay tihi intay marada saa u qabatay waxay tihi wallaahi maa macahu ilaa milu hudbati thawbi maradaasoo kale bay tii jilaaca meesha wax yaalla cumar iyo way canaanteen oo daa yiri gabadha markaasuu wuxuu yiri daadna odaygii horaad u xiistay sooma laa xataa taduuqii cusaylatahu wayduuqa cusaylatak ilaa xiriir gogoleedoo la taaban kara dhex maroo isdhadhamisaan kii hore lama ogola marka ninkii cunno haddii lagu soo eedeeyo maba isdhaqaajinayaba warwareega waxba ma hayaba dhaqaaq iyo nuuxsi mabale hadday noqoto isagana de gabadhii cifatu nafsi iyo baahideedii wax daboola meesha maba yaallaba halkaa waxaad ka ogaateen guurka ahdaaftiisa waaweyn waxaa ka mida baahida dareenka shahwada nafta in si xalaala lagu daboolaa ka mida wa min hunaa bay fuqahadeenna qaybo ka mida waxay ka hadleen gabadha ninka marka loo guurinayo in gabdhaha erarkaa duqeyda waaweyn laga daayo kutubta kale haddaan tagno baan masaladaa ka hadli doona haddii aan la yihaahdee fuqahada qayb baa ka hadlay qaybo badan baa masalada fuqahadeena ka hadlay raxmat ullaahi calayhim jamiica calaa kulli xaal arrintan ceebaha in laysku celinayo labay culimmadu u daliishadeen marka koowaad aahaar cumar iyo cali iyo ibni cabbaas laga soo guurinayo bay u daliishadeen marka labaadna waxay dhaheen guurku waa ulfo iyo isu duman iyo kalsooni iyo laabsami iyo isjacayl wey qofba cudur balaayo ah hayood ka cararayso meel kulama noolaan karti rag iyo dumarku dooni ha noqdee guurku midda labaad hadafkiisu shahwadii iyo dareenka nafta intuu meel xun kula geli lahaa xalaal ku gudo wey haddaadan waxaad meesha u timid lahaynba hadduusan ninku waxaba isku haynin gabadha gurigoodii meelay seexatana kamayna waayin waxay cuntana maynan waayin aradna ma soo qaxinin oo aradbax mayna waayin baahi guur bay lahayd hadday ka weydo wax kale inay raadsatay xaqu leedahay isaguna waxaan mas-uuliyad iyo kharash iyo biil iyo uma qaadin inuu sariir keligii galgasho isagoo baahidii guur qaba weli wuxuu u qaaday xilkaasoo dhan kulayl iyo arrin kaloo xaaraan uu uga baqayo naftiisa inuu ku badbaadiyo hadduu intiiba waayo muxuu xil iyo culays iyo nafaqaad iyo waajibaad u saaraan hadday hal dhacdo baa inuu masaladan ku lamaan markay sidaa noqoto ee fasaq tago gabadhii maxay leedahay laba xaaladood bay noqon haddii sidaa lagu kala tago ee ceebtaasi timaado iyadoon xiriir gogoleed waxba dhexmarinna la kala tago meesha waxba layskuma laha nin walba halkiisii uu nabad qabaa haddiise ninkii iyo haweentii xiriir gogoleed dhex maro markaa macnaheedu dhibku xagga ninka kama socdee xagga haweentu ka socdaa xanuunka iyo baraska iyo iyadu hayay wuxuu yihi berrina iska fasax bal caawana ka muraadso meherkeeday leedahay falaha lmahru bima staxalla min farjiha banaysashaduu banaystay xalaalaystay meherkeeday leedahay isagana meherkiiyuu u dooran cumar radi allahu canhu aarkiisu wuxuu leeyahay nin baa u qariyey ninkii u qariyey buu qaanka iyo wixii kharash kaga baxay ninkaa dushiisa weeye ninkaasuu ku leeyahay ninkaasuu maxkamad keeni ninkaasaa xoolaha looga qaadi waxa laala wixii gabadhaa kaga baxay ninkaas waayo iyadoo naagu gabadh waalan waxaad qof ugu qarisood kharash ugu gelisay khaain musuq maasuq oo tuugaad ahayd wey sidaas
مذهب شافعي مذهب أهانه أنا مسائلك قولك قديم كشافعي فقهاء يرجحين ويش شافعية المتأخرين تأثر كان عمر بلقوري رضي الله عنه وارضاه أصل أي في الصداق قبلها واحد مهرك الله ونقيه عقدك قبل مركز لقورسنا إن مهر لسيو الله مقعاو بيحق لهذا قور كستا ولا قورسنا عقد نكاح كستا ودعانا مهر باك واجبة إلهنا وحيد وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم إن تكون طلبتان مالك نال إذن كحلالي هوانك حرامت إذن كأوحي كبضا حلالينتي وحال وحري إن قبلها مهر صداق إليهن ويستحب لكن عقد مركو دعيو إن لا شيء واجب معها ويهدان لا شيء إسكاب واجبي ويسوون أكسنته ويستحب وحاصلنا تسمية المهر مهرك إن لما عاب في النكاح عقد النكاح سنة لماذا أنا وحيود للشهدين لبا الرموت مركا كوبات ضمان انت النبي عليه الصلاة والسلام قورسنيي أما قورينيي عقد النكاح عن مهر للشيء مدعن وحي النبي ولازمه مواظبة كسمينا waxay kamid tahay awjuhda sunnanimada iyo istixbaabka laga qaato marka labaad waxay yiraahdeen wali'annahu adfa'u lilkhusumati hadhow isqabqabsi iyo murankana tana badbaado badan oo marka horeba haddaad ku heshiisaan waxay noqon laba cayriinka ku heshiisay bisaylka isuguma timaadaa la yidhi raashinka oo cayrina labadii ku heshiisay qaybsata bisayl ay isku dagaalaan isku qabsadaan maba dhexmaraba laakiin haddana caqdigii qur-aanku wuxuu sheegay inuusan amarka lays amraye sadaaq samee iyo kan samee la leeyahay uu istixbaab yahay ay bannaan tahay in caqdigii uu dhaco isagoon meher la sheegin haa iyo maya toona ilaahayna qur-aanka waa ka ku leh laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaaa maa lam tamassuuhunna aw tafriduu lahunna fariida idinkoo waxbaba u qadarin haweentii haddaad kala tagtaan dembi ma aha mar haddayna dembi ahayn way bannaan tahay amarku haddaba markaa in la sameeyo ahi istixbaab iyo sunnuu noqonaya haddaba maharkii gabadhii laba mid saddex mid unbuu ugu waajibaa sida uu mualifku inoo sheegi doono fain lam yusama haddii aan la magacaabin صaxa alcaqdu caqdigii iyo meherku waa asaxayaa nasan wa ijmaacan sidaan bayna fuqahada muslimiintu isku wada raaceen oo ay ku ijmaaceen oo wajaba almahru maharku waa waajibaa markaasaan la magacaabin bialaaثati ashyaaa saddex mid buu ku waajibayaa marka koobaad an yafridahu الزawju ninku inuu qadarooga xukumo calaa nafsihi naftiisa dabcan gabadhuna ay aqbashay ogolaato intaasaan kaaga dhigayaa meherkii inuu yidhaahdo ay ogolaato taasi wuu ku asaxaa meherkii intaa uu qadaray iyaduna ogolaatay baa waajibaysa talabaadii aw yafridahu alxaakimu ama qaadi uu xukumo oo yidhaahdo gabadhan meherkeeda intaasuu noqonayaa taasina meherku waa ku waajibaa waxay yidhaahdeen waxaa asal u ah gabadhii nabigu u timid calayhi salaatu wasalaam ee nafteeda rasuulkii u hibaysay markaasuu wuxuu yidhi anugu hadda xilligan guur iyo haween uma baahni nin bay rasuulka ilaahayow haddii aadan adigu aadan rabin anigaa rabe gabadha igu dar buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi orodo waxaad soo raadisaa waxaad meher uga dhigta soo raadi ninkii mudduu maqnaayo uu soo noqday waxba waan soo waayey buui waxaan meher uga dhigo fara kuma hayo markaasuu na war orodoo soo raadi faraati bir aan ahan noqdee orod wax soo dayday waa soo daydayeyo isna waa soo waayey wuxuu yidhi xataa faraati bira ma heli karo markaasuu yihi maxaad taqaanaa qur-aankaan aqaanaa buu yihi qur-aanka inaad bartaan kugu guuriye nabi alai salaam halka haddaba nabigu gabadhii idan ma weydiinine bixukmi alimaamati walwilaayati buu isagu go-aamiyey oo meherkeedii qadaray halkaa waxaa laga gartay aw yafridahu alxaakimu halkaasaa la cuskisiiyey
aw yadkhula bihaa ama gabadhii inuu galmoodo uu reeraysto oo xaasaysto markaa kadib fayajibu waxaa waajibaya mahru lmili iyadoo kale wixii meher u noqon jiray baa waajibi iyadoo kale maxaa lagu meheriyaa seebaa loo qadariyoo loo ogaan fuqahadeenna shaaficiyadu qaaciday bixiyeen madhabkeennu waxaa weeye meherka waxaa la tixgelinayaa dadkii ugu dhowaa ee dumar ahaa oo qaraabadeeda iyo xigtadeeda ahaa gabdhaha walaalaheeda laga bilaabi kuway eeddadiiyo habaryarta u tahay baa la marin haddii intaasoo dhan la waayo waxaa loo tegi maxaarimteeda habaryaraheed iyo eeddadeed iyo baa la aadi wixii ugu badnaayee lagu meheriyey baa horta meel la dhigi kadib baa qiimayn loo soo fadhiisan dadkii gabadhani waxay dheer tahay oo ama caqli ah ama quruxa ama aqoon ah oo ay dheer tahay ma jiraan siintan loo kordhiyo waxoogay loogu daro mise kuwan way ka wadeer hoosaysaayo waxbaa si ka oo sibay hadhikaa meel uga tahay si intaa looga dhimo bay dad caadiliina fiirinayaan hadday dadkii ka wada dheer tahayna intoodii baa kor looga yar qaadi hadday ka yaraa hoosaysana hoos baa looga dhigi hadday iyagii uu ku dhex jirtana intaas loo badan yaha loo dayn qaabkaasaa loo qadarayaayo loo tixraacayaa xaqa isku qabsigiisa bay culimmadu yidhaahdeen ma gabadh baa ma garoob baabaa saamayn yeelan gabadh ma xoolay haysato xoolaa lagu guursaday mise xoolo ma haysaninoo iyadaa la biilayaabaa qayb ka qaadan waxyaabo badan baa qayb ka qaadanaya oo wixii sifaadka markii intaa lasoo ururiya ka qayb qaadanayso waxay yidhaahdaan sifaadka iyo tilmaamaha loogu xishiye lagu guursada gabadh hadday iyaga intii hore wax dheer tahayna waxbaa loogu dari hadday wax ka dhiman tahayna waxbaa laga dhimi halkaasaa mahlulmaliga marka la tix raacayo loo raacaya masaladaas mahlulmiliga saa in la yidhaahdo haweenkaa la eego asal sharciga ma leedahay nacam haa abu daawuud iyo ibnu maajah iyo keyrkii iyo tirmidi waxay wariyeen min xadiidi ibni mascuudin radia allaahu canhu wa ardaahu in la weydiiyey gabar nin mehersaday aan gobol la gelin meherna u magacaabin baa ninkii geeri ku timid gabadhii maxay leedahay baa la yidhi wuxuu yidhi lahaa mahru nisaa'ihaa wa calayha alcidda marba geeri hadday timid ciddadii 4 ashhurin wa 10 bay geli haweenka reerkeeda meherkay lahaydna meherkii lagu meherin jirayna waa la siin ibn mascuud markaa waa ijtihaaday waxaa istaagay nin macqil ibni sinaan alashjaci la yidhaahdo wuxuu yidhi waxaan markhaati ka hoon ku dhaaranayaa in sida aada xukuntay tan oo kale lafteeda gabar annaga naga dhalatay reer ashjac oo birwac binti waashiq la dhihi jiray inay sidan oo kale ku dhacday oo nabiga loo keenay oo nabigu sidaad xukuntay uu xukumay waxaa la mascuud weligii maalinkaas ugu farxay oo kale uma farxin masaladii uu ku ijtihaaday baa naskii nabiga xukunkiisii waafaqay sal arrintaas waa ugu farxay haddaba xukunka nabiga ee waafaqay wuxuu ahaa lahaa mahru nisaa'iha haweenka ay ka dhalatay meherkeedoo kale leedahay maadaama waxba loo magacaabin halkaasaa mahrulmaligana asal u ahoo loo daliishaday oo culimmadu ay geliyeen raxmat ullaahi calayhim walaysa ma ahaanin liaqali sadaaqin maharka kan ugu yar walaa liakarihi kan ugu badan xaddun xad go-anoon la dhaafin karinna ma laha xad aan laga yarayn karinna ma laha amaa xad aan la dhaafin karin inuusan lahayn waa nas iyo ijmaac ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wa aataytum ixdaahunna qintaaran midood haddaad mahar u siiseen maal badaan xad looma yeelin waana itifaaqu lfuqahaa'i in xad akaru lmahri uusan xad lahayn laakiin waxaa wanaagsan waxay saas tahay inaan aada loogu talax tegin oon la badinin baa wanaagsan nabigana ala slam waxaa ka sugan inuu yihi ina min yumni اlmarأati taysiiru khibatiha wa taysiiru sadaaqiha wa taysiiru maalkii
wuxuu ku yidhi wa taysiiru raximiha xididnimada iyo xiriirka in la fududeeyo doonitaanka iyo bixintana la fududeeyo meherka iyo waxa sadaaq looga dhigayana la fududeeyo barakada haweentay ka mid tahay lafdiga kale ma asixin acdamu nisaa'i barakatan aysaruhunna ma'unatan xadiidka isagu lafdigaas ma asixin kan kale xasan oo asaxay waxaana cumar ka soo radiyallahu anhu ardaahu inuu leeyahay war meherka ha ka badbadinina hadday sharaf tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa gabdhihiisii wax badan ku meherin lahaa waxaasi sharaf maaha midna ogaada oo laba ruuxoon israbin xoolo meheroo la magacaabay iskuma hayaan reer ma dhisaan in wax la magacaabana way fiican tahay in la adkeeyo oo laga badbadiyana way dhib badan tahay nin soomaaliya baa waxaan joogay xilli aan u maleeya dhowr iyo siddeetankii inay ahayd baa gabar buu reerkoodii sida soomaalidii ay dhisire kala soo cararay wadaad meherinayaan marka meesha anoo imid baan la soo kulmay waxay tihi gabadhii meher maxaa lagaaga dhigaa markaase waxay tihi 40 geela 40 warwaran war waan ogahay way ogtahay u yiraahday bixinaynina iskaga meheriyo iyadoo lafteed magac bay ka rabtay naa wax ka dhib baa la yidhi markaase waxay tihi erag intay sheegtay ninka qabiilkiisa yaraha yasaysaa annaga ka yar qabiil fiican bay leedahay reer hebel gurso 40na ka yarayso suuragal maaha bay tiri nin kalena waxaan joogay $20,000 intaan galbeedka joogay baan la kulmay waxaa yidhi maa ka daysay gabar ay 20,000 isagaba inuu isirisiinayni waa ogahaye magacaan ka rabaa bay tiri magaca 20,000 baa lagu meheriyey baan rabaa bay tiri marka muuqaalaadka saas oo kaleetii guurka unbuu dhaawacaayo xataa gabdhaha raggay guursan lahaa inteed ka keeni uu leeyahay 20,000 iyo 40 geel ruuxa naga daa guurkii dhallinyaradii inay ka cararaan bay keeni markii guurku yaraadana gobol dhaafka iyo luuqiyo wareegu inuu bato mar kastood guurka adkaysaan zinada albaabo cusub jeexa ciyaalkii daayartay haddaan guurka intii la dedejiyo la fududaynin dariiqyo badan oo xaaraan ay jabsan ninkii magaalada jooga xilli fiidadkii ana meelaha mara ama meelaha halkaasoo magaalada ah soo maraana daayar badan oo Soomaaliyeed oo dariiq xun hayso oo dumar iyo rag isugu jiro arki ninkii dhakhaatiirta la sheekaysana dhabanahan buu qabsan waxa qayb weyn waxa ka ah guurka xalaasha ee la adkeeyay baa wax weyn ka ah markii dhalinyaradii guur lagu adkeeyay diin badan oo celisana aynan jirin dareenkii iyo baahidiina ay qabaan dariiqii saxda ah la xiriye mid xun in lagu sameeyo baahida lagu gudo way qaasi waa qadiyad waalidiinta u taalo intaad guur degdega ka cararayso ilmo wacaliiso irinta kaaga soo geli arintaas Allah fiirsado lacalla marna ka hadla laga yaabaa ama sadaaqa kan ugu yar xad inuusan lahayn xadda waxay ula jeedaan fuqahadu inuusan lahayn weeye intaa lagama yarayn kara la dhihi maayo laakiin wixii mahmaala ama manfaacala waa inuu noqdaa inaan xadda ugu yar waxba loo goyn karin nabigaaba yiri calayhi salaatu wasalaam walow khaataman min xadiidin faraati bir ana han noqde halkaa waxaad ka garatay wax yar baa noqon kara intaan galbeedka joognay masalada meherku gabadha loo magacaabayo waxyaabihii mashaakilku naga qabsadeen bay ka mid ahayd kuwii soo islaamayey muslimiintu way yaqaanaan tii soo islaantay markay nin isguursanayaan ee meher sii laleeyahay maxay tii meher muxuu yahay bay leedahay aniga isagu waa isu baahan tahay waxay isaga keligii wax bixi loo leeyahay masaladaa fasiraadeedu wax badan bay naga qaadatay iyo wareer way fahmi leedahay waxa isaga wax bixi loo leeyahay maxay tahay sababtu keligii ma keligiibaa guurka baahidiisa iyo dantiisa ma keligii baa wada iyaguna reerkoodee dee mushkilada galbeedku qoys ma jiro laakiin waa iskaabula shirkad wada degan wey ninkiiyo naagtu iskaabula waa degan waa idinkaga sheekeeye biilka way isku darsadaan kirada way wada bixiyaan raashinka iyo nadaafada guriga way ku maalmaystaan oo laba iskaabula wada degan oo biilka isku darsatay wey saa darteed nin walba dhinaciisa waa inuu isdabara dhaqanka iyadoo taqiinay ninkaa wax walba laga rabaa weliba meher ugu dara weeye waxay ku leedahay gariib wey waxaad uga jeedaan meher sheega markuu leeyahay wat meher horta sheega inay wax qabsato waxaa ka horeysa
horta inuu waxaan jirin aad u qanciso meeshii meerkuu la fadhiyaa dood dheer baad gelaysaan horta markaad waagi dambe waxaan dhihi jirnay wareedha haddaad soo heshiiseen intaydan meesha noo keeni wakti hanaga dhumina ka soo dhaadhiciya usoo sheego usoo warrabo meher waxa la yihahdaa jiro marka qolana cirka isku shareerayaan oo 100 kun bay leeyihiin qolana waxa yar xataa $10 hadii la yiraahdo maxaa laga rabaa bay leedahay way garan leeyihiin wax muxuu yahay wada yaabay halkaas adduunka la kala maray Allah musta'an inta uu yar laakiin waana wax maal noqon karo cayna inuu yahay ama wax manfaca la taaban kara yeelan kara waa inuu yahay sidii quraankii laakiin quraan marka quraan la barto marka laga dhigaya meher way asaxaysaayo nabiga sameeyay calayhi salaatu wasalaam laakiin fuqahada shaafiiciyada madhabkani laba shardi baa ku xiran shardiga koowaad waxa weeye waa waxa la barayo qadar waxoogay dhib iyo culays ku jira waa inuu yahay hal aayad bar alxamdulilaahi rabbil caalamiin kaliya bar meher ma noqotay leeyihiin qadarka quraanka la barayo qadaraad waxoogay rafaad iyo wax kala kulmaysa waa inuu noqdaa shardiga labaad waxaan la barayo waa in la og yahay ama muddo lagu ogaadaa ama qadarka la barayo la ogaadaa juz suuratul baqara 2 juz 10 juz 20 juz inta la barayo waa inay caday hadii kale muddo waa in lagu xadeeyo baabul ijaara geliye bil inuu quraanka baraway marka iyada waxa la leeyahay waxay doontay sheegato bari muddo hadii lagu xadeeyo iyada go'aaminaysa waxa la barayo ويجوز وحابنا أن يتزوجها إنه قرسده على منفعة معلومة منفعة لا يقانا ولا قرانا أيه منفعة حج بانكو قيوي وعنكو عمريسين وي وحاكم إذا قرآن بانكو بري حرفت كلامكو بري كمبيوتر بانكو بري في إنجليز بانكو بري حساب بانكو بري وح علمي منفعة ولو قرسان كران فقال إن المسألة إذا سوقت المركب ninka hadduu haweentii guursado oo meherkii waxaan kaaga dhigay uu yiraahdo inaan ku khaadimo ku adeego masalada ma saxaysaa weeyay saxaymayso inaad guriga iska joogto oo cuntadan uu soo kariyo oo dharka soo dhaqo oo soo xaaqo salaasa muran badan fuqahadeena ka dhacay qolada diidanba waxay leeyihiin manfaacadani waa manfaaco ka hor imanaysa mas'uuliyadda ninka saaray ninku waxay ahayd biilkiisa laga rabaa